madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u shaaciyay in laga bilaabo maanta ay tahay 1 Agoosto 2019 uu celiyay baasaboorkii uu ka haystay dalka Mareykanka. Arrintan ayaa timid iyadoo madaxweyne Farmaajo uusan ka qayb gelin shirar dhowr ah oo madaxweynaha looga yeeray kuwaas oo ka dhacay dalka Mareykanka. Dad badan oo u dhandoloola siyaasadda Soomaaliya ayaa ka fakaraya su'aalo ay ka mid yihiin ma laga yaabaa in shuruudaha madaxweynaha ama musharaxa madaxweynaha sanad doorasheedka 2020-2021 ay ka mid noqoto in musharaxu uusan dhalasho wadan kale sidan taasoo jawaabteedu soo bixi doonto kadib doorashada Soomaaliya. 3 maalmood ka hor waxa uu la kulmay madaxweynaha guddiga dastuurka iyo wasaaradda dastuurka maadaama la dhameystirayo dastuurka sanadkan iyadoo uu qodobo dhowr ah kala hadlay. warqadda uu madaxweyne Farmaajo ku celiyay baasaboorkii Mareykanka ahaa ee uu haystay ayaana waxay u qornayd sida tan: saxaafadeed celin jinsiyadii labaad ee madaxweyne Farmaajo. maanta oo ay taariikhdu tahay 1 Agoosto 2019 waxaan si rasmi ah idin la wadaagayaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu celiyay jinsiyadii labaad ee uu ka qaatay dalka Mareykanka. hawshani waa mid soo socotay in muddo ah oo ay ku howlanaayeen sharci yaqaano iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadda ee Soomaaliya iyo Mareykanka. madaxweyne Farmaajo waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isaga oo ka kororsaday aqoon iyo khibrado shaqo oo kala duwan. waxa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka noqday ra'iisul wasaare sanadkii 2010. dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ogolaanaya in muwaadinka Soomaaliyeed uu qaadan karo jinsiyad kale balse markii la doortay kadib madaxweynuhu waxa uu si iskiis ah u bilaabay qorshaha celinta baasaboorka labaad ee Mareykanka taas oo maanta soo idlaatay dhamaad. waxaana ku saxiixnaa warqadda madaxweynaha uu dib ugu celinayay jinsiyadda labaad uu ka haystay Mareykanka agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed. lama oga waxa madaxweyne Farmaajo ku qasbay arrintan uu sameeyay waxaana tani ay muujinaysaa in madaxweyne Farmaajo uu ka fikiray go'aanka uu qaatay kaas oo ahaa inuu dib u celiyo jinsiyadii labaad ama baasaboorkii labaad ee uu ka haystay Mareykanka. su'aasha kale ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay madaxda kale ee Soomaaliya ee u muuqda in dalka u soo shaqo doonteen ma laga yaabaa in iyaguna ku daydaan madaxweynaha oo ay dib u celiyaan aqoonsiyada iyo jinsiyadaha ay ka haystaan dalalka qaaradda Yurub.